مدن رئيس الوزراء waxaan ku bilaabayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ahaayeen kuwa mar walba niyad ku haay inay helaan hoggaan wax ka dhageysto isla markaana ay la wadaagaan khibrad 26 sano dalka gudihiisa dagaal sokeeye ka socday ku noolaayeen ama dalka dibadiisa ay aadeen oo ahaayeen kuwa qaxoonti ama meelo kale rafaad kala soo arkay mudane waxa hogaamiye u tahay dad dhalinyaradiisa lagu tilmaamayeen burcadadeed hogaamiye argagixiso dad kale taariikh sharci darro ku kala wadamo islaameed isla markaana soo wajahay duruufo kala duwan xagga nolosha kuna jira xabsiyada dunida ku kala yaal mudane ra'iisul wasaare dhanka kale waxaad masuul ka tahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo isdiibay nolosha ku guuleystay isla markaana go'aansaday dawladda Soomaaliyeed kadib inay sameystaan nolosha ay rabaan wax bartaan duruufo kasta oo ku jiraan abuurtaan ganacsiyo yaryar isla markaana dhiirigelin u noqon kara dhalinyarada kale Afrika ku nool tusaale fiican oo ah mudane ra'iisul wasaare dhalinyaradu waxa ay soo jeedinayaan in xoogga la saaro abaabulka dhalinyarada oo loo isticmaalo wacyigelinta nabadda iyo horumarka marka koowaad in dhalinyarada la abaabulo loona isticmaalo wacyigelinta iyo nabadda lambar 2 in la ixtiraamo afkaarta iyo hal abuurada dhalinyarada ku jirta oo haddii dhalinyaradu ay fikirro wanaagsan keenaan inta badan meel laga soo qaado taasna marka waxay keenaysaa in dhalinyaradu ay ka niyad jabaan hal abuurada iyo fikirrada ku jira taas marka in la xoojiyo oo ay dawladdaadu ay awoodsiin fiican dhalinyarada ay siiso qodobka saddexaad in la xoojiyo xiriirka dhalinyarada iyo hay'adaha amniga dhibaato badan ka jirta dhanka xiriirka dhalinyarada iyo hay'adaha amniga ka dhaxeeya aad bay dhibaatooyin badan ayaa laga kulmaa in marka ayadana la xoojiyo si looga wada shaqeeyo amniga iyo xasiloonida dalka mudan ra'iisul wasaare maandhow waxaan ka qayb qaadanay adiguna aad si sharaf badan noogu soo booqatay ilaalinta imtixaanaadka ardayda aanu muddo isbuuc ku dhow u soo jeedin si walaahi ay heer sare waxbarashada uga gaari lahaayeen tirada lagu qiyaasay waxay ahayd ilaa 24 inta u dhaxaysa dhalinyaradaas dugsiyada sare ka qalin jabisay waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh inaad koorsooyin dibadda oo ciidannimo u raadiso waa dhab markaan sidaa ku leeyahay maanta inagu dawladnimadeenu waxay u baahan tahay ciidan Soomaaliya haddii maanta la tiriyo imse dhakhtar baa laga heli karaa 10,000 20,000 kor bay u dhaafaysaa laakiin 20 sarkaal oo dhalinyaro oo kabtan ilaa xidigla inta u dhaxaysa laga soo heli maayo mudane ra'iisul wasaare burburkii ka hor 27 sano ayay dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaato ku jireen dhib iyo qaxar iyo rafaad iyo qabiil iyo qabyaalad ay soo mareen laakiin maanta waxaa noo muuqatay didiilo ah in dhalinyaradii ay ka gudbayaan waxaas oo dhan intaan meesha fadhido ma ahan dad qabiil isku soo xulay waa tiim isku xiran una istaagay marka waxaa ka codsanaa sida hore looga dhawaajiyay dhalinyaradaas abuurka leh in la dhiirigeliyo haddii aan dhiirigelin helin waxaan ognahay inay dib u sii laabanayaan yani wixii ay qabteen inuu ku sii dhiirigeliyo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dalkan soo xoreysay iyo idinku maxaad ku kala duwantihiin waxaad ku kala duwantihiin kaliya iyaga garawsaday inay dalkooda xoreeyaan idinku laakiin waxa idinka maqan awoodiina intay lacag tahay inaad isu sheegtaan waxaad aaminsantihiin in madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu dalka ay xukumaan waxaa idinka khaldan inaad fahamtaan idinku dalka inaad xukuntaan waxaan idinku waafaqsanahay waddanku inuu fursad leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan idinla hadlo si ka duwan sidii dadka hore idinla hadli jireen fursadda waddankan cidda la raba inay ka faa'iidaysato idinka anigu waxaan idin siinayaa albaabkii aad uga faa'iidaysan lahaydeen waxaan idinku caawinayaa inaan runta idiin sheego waxaan idinku caawinayaa in waxa calooshiina ku jira aan codkayga idinku caawiyo waxaan idinku caawinayaa inaan istaan cusub idiin noqdo waanan dadka iyo dalka aanan qiyaamayn waa in xaqiiqda aad ogaataan xaqiiqda aad ogaanaysaan waxay tahay waddankani waa waddan dhibaato badan soo maray kala qaybsamay
ummaddu ay isdagaashay hadda dib u soo ka kabmaayo cadcad la isugu soo celinayo waxaa laga yaabaa idinka cid shaki idinka qabta inaysan jirin dhallinyarada Soomaaliyeed meel walbay joogaan dawladnimada way rabaan odayaasha Soomaaliyeedna meel walbay joogaan dawladnimada su'aal bay ka qabaan soo iskuma raacsan haddana cidii dawladnimada u hari lahayd oo dalka u hari lahayd waa idinka dalka cidii mustaqbalka ugu badan u hari lahayd waa idinka iyo caruurtiin su'aasha marka aan soo diinayna waxay tahay wadankan dhibaato ku jira aad u adag dhalanteedka hal iska joojiyo wadankani wuxuu u baahan yahay kacdoon cusub wuxuu u baahan yahay abaabul cusub wuxuu u baahan yahay number ka badan numberka maamulka ku jira inay kacaanay dalka u istaagaan